Bismillah, Assalaamu calaykum. Sarkaal iyo askari lagu dilay Rafah, Israa'iil oo ballaarinaysa howlgalkeeda dhulka ee Gaza. Waxaan idin soo gudbinayaa warar ku saabsan xaaladda ka taagan marinka Gaza, gaar ahaan magaalada Rafah. Sarkaal iyo askari Israa'iil ah ayaa lagu dilay halkaas xilli ciidamada gumaysiga Israa'iil ay isku dayayeen in ay ballaariyaan howlgalka dhulka ee ka socda Gaza. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in sarkaalka iyo askariga lagu dilay qarax ka dhacay tunel ku yaala magaalada Rafah, halkaas oo ay baaritaan ku hayeen. Qaraxa ayaa sidoo kale sababay dhaawac 4 askari oo kale ah. Magaalada Rafah oo ku taala koonfurta Gaza ayaa ah mid xilligan bartilmaameed u ah qorshaha Israa'iil ee lagu ballaarinayo howlgalka dhulka, sida uu sheegay janaalka 12aad ee Israa'iil oo soo xiganaya ilwareedyo ku dhow taliska ciidamada. Labada askari ayaa ku dhintay kadib markii la furay god ay baarayeen, kaasoo markii dambe la qarxiyey. Dhanka kale, wasiirka gaashaandhigga Israa'iil ayaa sheegay inay garab taagan yihiin qoysaska ay ka geeriyoodeen askarta lagu dilay magaalada Rafah, xilli uu ku tilmaamay waqtiyo adag oo ay dalka ku sugan yihiin. Ciidamada kaydka ah oo loo diray amar degdeg ah. Wargeyska Yothaq ayaa soo xigtay saraakiil militari ah oo xaqiijiyey in Israa'iil ay bilowday in ay dirto 10,000 oo amar degdeg ah fiidnimadii Sabtida si loogu yeero ciidamada kaydka ah, loogana dhigo kuwo u diyaar ah ballaarinta howlgalka dhulka ah ee maalmaha soo socda. Warbixintu waxay intaas ku dartay in askar badan oo kayd ah ay waayadan dambe ka fogaadeen ka qaybgalka howlgalka militari, iyagoo raadinaya marmarsiyo kala duwan si ay u baaqsadaan. Mid ka mid ah askarta kaydka ah ayaa sheegay in xitaa saaxiibadii dhawaa ee taageeray dagaalka 7 Oktoobar ay hadda ku boorinayaan in askarta ay iska casilaan xasuuqa ka socda Gaza. Dhanka kale, weeraro isdaba joog ah oo ay Israa'iil ku qaaday guryo iyo teendhooyin ay ku sugnaayeen dad barakacayaal ah ayaa sababay dhimashada 6 Falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan haween iyo carruur. Qaar kalena waa ay ku dhaawacmeen. Wariyaha Al Jazeera ee magaalada Khan Yunis ayaa sheegay in haweeney Falastiin ay ku dhimatay duqeyn lagu qaaday guri ku yaala xaafadda Al Amal ee galbeedka magaalada. 7 Oktoobar 2023, Israa'iil oo taageero buuxda ka helaysa dowladda Mareykanka waxay ku dishay kana dhaawacday in ka badan 170,000 oo Falastiiniyiin ah, kuwaas oo u badan yihiin carruur iyo haween. Waxaa weli la la'yahay in ka badan 11,000 oo ruux.